xaqiiqdu waxa weeyaan anagu waxaan baan idin sheegaynaa laakiin beelihii doortay sababahan idin doortay baa jirta marka inaad khibrad hogaamineed inaad leedihiin ruux beeldan oo ka kooban 2,000 oo ruux 100,000 oo ruux nin inay iska soo saaraan oo ay dooraan runtii ninkaas sabab baa jirta lagu doorto dabcan waxaana waxay ahaayeen ku beerin inaad waxa taqaaneen inaad ku beerino marka inaad intaas oo maalmood nala joogtaan runtii aad baan idinka mahad celinaynaa musiiq tababarada inta kaliya ma aha oo ognahay odayaasha dhaqanka Jubbaland waxay ka mid tahay meelaha Soomaalidu ay wada degan tahay marka waxaan ogsoonahay in ay jiraan odayaal inta ka badan nabadoono hoose ha ahaadaan insha Allah tababarka waan waleynaa noocyadiisa kala duwan marka idinkana aad baan idinka mahad celinaynaa wada shaqayntiina wasaaradda inta meesha fadhida way ka duwan gashiin xalinta khilaafaadka iyo dhisidda nabadda marka odayaashu waxa weeye waa arintay u joogaan ay koofiyadaha u qabaan ee duubabka u qabaan arintaas iyada ah shaqadooda taas ah waxay ka dhigan tahay marka isxasuusin iyo kor u qaadid garaad unbay kordhinaysaa baan islaahay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha cashirada qiimaha badan ay noo soo diyaarisay iyo fahanka macallimiinta yani maaragtay sida ay loo fahansiiyeen baan uga mahad celinaynaa insha Allah taala sare oo ka tirsan arrimaha dib u heshiisiinta baan ahay marka waxa la kaga fadhiyo waxa waaye waqti election lagu jira inta badan waqtiyada doorashooyinka macnaha xadgudubyaal isku sameeyaa beelaha qaar kala tabtaan kuraasta la iska riixdaa mataqaanaa gacan bidixayn badan baa jirta dadkii la rabay inay buugahaas dhayaan dadka isku soo jiidaan ay isku dayaan inay ka ilaaliyaan ummadda inay qaybsanto ama khilaaf soo dhex maro waa idinka weeye ka Jubbaland ahaan waxaan dhihi karaa doorka kale ugu weyn oo idinkaga fadhiyo waxaa weeye inaad hadda sida la sheegay intiinan macnaha waxaa ku beesgaraysantihiin jubbada hoose ama Kismaayo haddii aysan odayaasha dhaqanku ahayn dowlad maanta sida aan u fakarayno iyo sida aan u fadhino iyo maamulkan jiro ma dhaceen marka wax leedama barahaye waxaa dib idin xusuusinaya sidii aad uga sii horumarin lahaydeen nidaamkii dowladnimo ee aad idinku soo dhisteen sidii loo sii horumarin lahaa wixii aad intaa joogteen shaqaynayseen aad arkayseen in aad idinku iska waraysataan in sidii loo sixi lahaa aad ka wada tashataan annaguna aanu idiin samayno facilitieska meesha aad isugu imaanaysaan ee aad ku wada hadlaysaan aad ku shiraysaan aad maaragtay wax ka soo saaraysaan waxa waaye idinkaas saldhig u ah Soomaali dowladnimadeedii inta hartayna inaad sii dhammaystirtaan baa la rabaa xilligan seminaarka waxaa loogu soo aadiyey marxaladaha inagu soo wajahan siyaasiga ah ee wax lagu dooranhayo dadka la dooranhayo idinku idinka imaanhaya idinka dhalahayo odayaasha dhaqanka ergooyinka wax dooranhaya samaynayo odayaasha dhaqanka jufooyinkooda waxa ay leeyihiin inay u qeeyaan u cadaalad falaan laga rabaa idinka waxaa laga rabaa inaad tiraadaan qoyskan intaasuu kursiga soo hayay maanta ha joogo oo qoyska kale ha ugu dayo idinkaa laydinka raba haddaad idinku marka waad soo hagaajiseenoo hadda la idinma dhaliilahayo la idinma laha waad soo qaribteen haddii ahayn waxba ma samaysneenba Jubbaland maalinkii laga yimid ee la aasaasay waan wada joognay intaanadan iyo